halkan waa qasriga madaxtooyada galmudug ee Dhuusamareeb waxaa goor ku soo ilaaday kulan lagu soo dhaweynayay isla markaana lagu taageerayay go'aankii madaxweynaha dawladda galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariga Qorqor oo ka qaatay arrimaha doorashooyinka dalka taasi oo ku aadaneed inaan la aqbali doonin muddo kordhin isla markaana dalka dib loogu celiyo heshiiskii doorasho ee 17 Sebtembar ay wada saxiixdeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir kulankan oo uu soo qaban qaabiyay maamulka caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb ayaa waxa soo xaadiray golaha wasiirada galmudug qaar kamida xildhibaano iyo bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan ugu horeyn waxa kulankan daafuray oo faahfaahiyay ujeedka nuxurka kulankan gudoomiyaha maamulka caasimadda galmudug Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedo Qorow tan kale xafladani waxay u caqdan tahay waa taageerista go'aankii masiiriga ahaa runtii aad iyo aad u adkaa ummadda Soomaaliyeed ay ku diirsatay runtii aan maaragtay isnina waa looga badbaaday dhibaatadii weyneed ee Soomaaliya iyo caasimadda Soomaaliya ku soo wajahantay oo ahayd in la wajahay ama se dhinac loo riday doorashooyinkii dhibaatada badan ay ka taagnaayeen go'aankaas oo ay qaateen madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariga Qorqor madaxweynaha naga iyo madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Cali Guudlaawe oo runtii ayiday ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda go'aankaas inaan ayidno taageero u muujino dadkan reer Galmudug aragtidooda ay meeshan ka dhiibtaan ay xafladan u caqdan tahay annagu arintaas waa soo dhaweynaynaa Soomaaliya annagoo la wadaagna runtii dhibaatada guud ahaan gaar ahaan dhibaatada Muqdisho ka dhacaysana si gaar ah ay noo taabanayso haddaan la jecel gaar ah Soomaalida annaga naga haysata annagu la jecel gaar ah Soomaalida u qabnaa waxa u daliila Dhuusamareeb shirarkaad ogeydeenana ku qabanay annagoo Soomaaliya in la helo midaysan Soomaaliya xaaladda hadda akiran inay ka baxdo annagoo danaynayna ayaa shirkii halkaan Dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo 3 aan ku qabanay oo ogeydeen Soomaaliya oo dhan isugu keenay xoog iyo xoolo waxaan heli karnay iyo maskax aan ku bixino Ilaahay baa ku mahadsan ayadoo runtii taas aan daba joogno markii haddana la jiitamay oo Muqdisho la iskugu tagay oo muddo 3 bilood aan ka yeelayn maaragtay marna la isu imaanayo marna teendada la tagay marna la isqilaafayay annaga madaxweynaha anagu wuxuu taagnay mar walbaba mucaaradkii dawladda hadda jirta ka soo horjeedana si toos ah ugu ma biirin dawladdana sidii ay rabtay oo toos ma u gacan siinin mar walba ayadoo nabadoonintii iyo Soomaalinimadii iyo maaragtay inaan Soomaaliya qofna laga maarmin meel la isugu yimaado ayadoo la sugaayo ayaan muddo halkaas ku adkaysanayn akhiiran markii inay ceel ku dhacdo bahashii ay qarka u fuushana waxaan runtii la qaatay go'aanka masiiriga oo madaxweyne Axmed Cabdi Kaariga oo runtii asagu oo hormuud ka ahay markii aan warka laga shaqshigin marka waxaan mar labaad ayideynaa go'aanka asaga agaasimaha guud ee madaxtooyada maamulka Galmudug Cusmaan Macalin Xasan oo halkan ka hadlay ayaa isaguna sidaan sheegay iga horeey runtii meeshan ka hadlay hadal kuma dhimanay waxaan protocol iyo hadal jecel wax naloo joojiyay marka intii ay yiraahdaan aad iyo aad u taageersanahay waxaan taageersanahay in dalkan iyo dadkan la wada leeyahay Soomaali ay wada leedahay cid kale aysan jirin nuguna wada filan yahay bilcagsiina anagu dad kale badan u baahanaa inaan keensanay inaan anaga isku jiidjiidno inaysan u baahneen intaas kadib markii runtii il aqooneed lagu fiiriyo waxa jira oo wadanka hadartan ka jira يعني هران أصارنا ولا السوسيجيدا كراسة اللي سقطتي كلا العيرية كلا لقى وحي ودن كيا بربرة وحاصل إنه هاد معنا 10 تاريخ إن لقى برته مركا رنتي وأنا لقى صابرتي مال في عنا إن كسعتي دور شدة قدام بيسوي حد وجدين لو مدحونا كحجين أو مدحونا هنا مدحونا فرماج جعنت انتقبتين سو استاجين يرى أنا وقتنا مدحونا كسر دو أيوة ما عرفتي أوده أيوة بين مركز واحد بدن أو قصة أي سميان marka madaxweynaha aan xaqirajeen insha Allah taala asaguna sidaas si ka sii fiican inuu sameyn doono jidkeedana uu aaday waa ku taageersanahay hore oo socdo intaas kadib maxay tahay la isdhihi karaa su'aasha weydiinta u baahan maxay tahay macnaha waxa jira maxay tahay runtii waxa anagu maskaxdayda markaan fiiriyay isoo baxday inay tahay waxa jira cudur la yiraahdo waxa jira ku dhaca madaxda adduunka oo dhan oo la yiraahdo hubris waa waxa markii qofka madaxweynaha ama maamulka dadka hayahay
ay aaminaan waxaan ayaga ahayn inaysan jirin fikirkooda fikir ahayn inuusan jirin caqligooda caqliga ahayn inuusan jirin kii ka soo horjeestaan inuu badalanaya oo ma aragtay ay tahay in gacan bira lagu qabto ama halkaas la sameeyo Soomaaliya kuma koobna Afrika kuma koobna adduunka dhan ay ka dhacda qaar ka mid ah bulshada rayidka oo ka qayb galay kulankan ayaa iyaguna sidoo kale soo dhaweeyay go'aankii madaxweynaha dawladda Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariga Qorqor oo ka qaatay arrimaha doorashooyinka taasi oo sabab u noqotay in magaalada Muqdisho ay xasisho isla markaana xasiloonidii hore ay ku soo laabato haddii aynu nahay dhalinyarada Galmudug gaar ahaan caasimadda anoo waliba ku hadlaya afka dhalinyarada Galmudug inaan garab taaganahay ay disanahay taageerayna hambalyeynayna go'aamadii masiiriga ahay ee qaateen madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle oo xaaladii cagireedo maalmihii la soo dhaafay ka jirtay Muqdisho waji kale u yeeshay waxaan leenahay waa maadsantihiin ummadda Soomaaliyeed ummadda Muqdisho farxad ayaad gelideen iyadoo qax iyo barakac lagu jiro aan rabaa inaan dul istaago oo si gaar ah ugu mahadceliyo madaxweynaheena Axmed Cabdi Kaariye sidaad la socotiinba 6 bisha oo ahaa safarkii maalintii ugu dambeysay ee uu madaxweynuhu ku hubsanayay nolosha iyo baahida reer Galmudug safarkaas oo safar 40 cisho qaatay amal kale ahaa oo maalintii ugu dambeysay ee magaalada ugu dambeysay Gurceel marinay 6 bisha ayaa waxa lagu calaamad saaray oo laga mid dhigay Axmed Cabdi Kaariye inuu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee Galmudug ayaan halka ku tagay durbadii wuxuu bilaabay markii maamulka loo doortay oo ugu hormaray siyaasiyiintii qaadacay tartanka madaxtinimada Galmudug lagu tartamay ayuu wuxuu ka bilaabay dibishisiintii waana ogeydeen guushii ka gaaray ilaa uu keenay rag culus oo ah xildhibaano federaal ah oo dawladda Soomaaliya ka mid ah haddaan inta uga sii gudbo Axmed Cabdi Kaariye madaxweynaheena ayadoo in muddo ah ay kulmin maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ayuu wuxuu qasab noqotay inuu halkaan ku casuumo oo ku kulmiyo dawladdii dhexe iyo maamul goboleedyadii waa xaflad runtii muhiim ah oo khaali ah oo aan u amaal hayno caasimadda inay sidaan maanta noogu soo qaban qaabiso baahi weyn ayaan u qabnaa waxaan leenahay aad u maasantiin waxaan maanta caasimaddan ku taageeraynaa madaxweynaheena qaaliga ah Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo dhigiisa kale Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe go'aanka masiiriga oo samata bixinta la dhigi karo oo ay qaateen ayaan ku taageeraynaa waana ayinsanahay waxaan leenahay haya oo hasiideynina madaxweynaha dawladda Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa kulamo kala duwan ka wada kuwaasi oo ku aadan arrimaha doorashooyinka dalka isla markaasna looga arisanayo sidii dalka ay doorasho uga dhici lahayd Cabdi Fataax Yuusuf Maxamuud Galmudug TV Dhuusamareeb